salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni falaqaynta iyo fariimaha somalilan xubinteenna aynu ku soo qaadan doonnaa haddii uu allaha awoodda la oggolaado hadal ka soo yeedhay guddoomiyaha xusbiga macaaridka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo si toosa shaaca uga qaaday inay musuqmaasuq qaran ay ku kaceen madaxweynaha waqti xaadirkan garhwadeenka ka ah dalka somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siraanyo isaga oo kula taliyay in madaxweynaha somalilan waqti xaadirkan uu xilka iska casilo madaxweynihii horena uu makxabad si toos isku soo saaro si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa noqotay arrintii ugu layaabka badnayd ee ka dhacday gebi ahaanba geyga somalilan isla mar ahaantana ay u qaadan waayeen kumanaan kun iyo malaayiin kun oo ku nool dalka somalilan daawadayaal fikirka saxdii waxa uu ahmiyad ballaadhan u leeyahay cid kastoo danaynaysa danaha guud ee dalka somalilan haddaba madaxweynaha waqti xaadirkan xilka haya mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka qayb qaatay waqti xaadirkii la soo maray jabhadayntii dalka somalilan ee la dagaalanka faragelinta shisheeye shacabweynaha ku dhaqan dalka somalilan ayaa waxa ay sheegeen in aanu waddanka u baahnayn qalalaase isla mar ahaantana maraan wax ka weydiiyey hooyo ku dhaqan dalka somalilan oo danaynaysa danaha guud ee dalkeega kana fikiraysa horumarka waddankeega ayaa waxaa ka mid ahaa hadalladeedii sida tan somalilan ma baahna musuqmaasuq ma baahna musuqmaasuq ninkii yidhi waa musuqmaasuq yidhina hala soo caddeeyo hala soo saaro caddaan ha loo arko madaxweynaha somalilanna somalilan way ku wada kalsoon tahay way jeceshahay aduu maxaad u malaynaysaa arrintan waxaa la maqlayay muddooyinkii ugu dambeeyey ma waxbaa ka jira mise waa waxba kama jiraanba been weeye waxaasi waa dad xumadoona waxaas oo mincaarada waxaa samaynayaayoo ka dhex faydaysanayo haddiiba ku leeyahay makhruuqa shacabweynaha ku dhaqan gebi ahaanba dalka somalilan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay isla dhex marayeen suuqyada ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka somalilan hadallo ay ka mid yihiin arrintan maxaa ay ka shidaal qaadanaysaa balse maxaa ay salka ku haysaa haddaba xogtaasi daawadayaal waxay ahayd xog daahsoon oonu ku soo qaadannay hadalladii ka soo baxayay xusbiyada macaaridka ah ee ku socday madaxweynayaasha somalilan daawadayaal barnaamijka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah ayaale maxamed aadan ayaa la talyaani kuna magac dheer suldaan iskamajiidhe daawadayaal si toosa waxaa igala qayb qaatay barnaamijka dhanka farsamada isku dabaridka cabdicasiis maxamed cabdilaahi dhanka kamarada cabdirasaaq maxamed ibraahin dhanka isku dabaridka iyo farsamada xanaf faysal axmed daawadayaal mar kasta iyo goor kasta hoobaal miidiya kala soco wararkii ugu dambeeyey iyo waqti xaadirka ay dhacayaan like saar sheergare isla mar ahaantana mar kasta iyo goor kasta hadh iyo habeen u helanow sidii aad ula socon lahayd muuqaalada xiisaha badan ee uu idiin soo gudbiyo hobal miidiya isla mar ahaantana ku wajahan wax kastoo waqti xaadirkaa taagan intaynu ku kulmi doonno barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafinaa idin lahaantiiba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu